السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلام وعنا ونكسن داوديال ميل ولي بأد جوكتان كسو دوادا هالكان او اد كلا سعوتان ورقا الصومالي دي يقودهان عالمك قضبادا اينو كسو قادرين دونو ديردن واينو كساري دونو وحا كميدا dagaalada ka soconaya waqooyiga Itoobiya gaar ahaan gobolka Xamaarada iyo sidoo kale dagaalada iyaguna ka socda deegaanka Canfarta waxaynu falanqayn guud ku sameeyni doonaa xukuumadda cusub oo Abiy Ahmed soo dhisay iyo Soomaalida wasiiradii ay filaneysay qaabkii looga xayuubiyay xilalkii ay horay u haysay sidoo kalena waxaynu isdul taagi doonaa eedeymaha kala duwan ay u soo jeediyeen Soomaalida qaabka uu Abiy Ahmed xukuumaddiisa cusub uu soo magacaabay qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu halkan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka subscribe sar lagnino sar asxaabtaadana la sii wadaag haddii aynu ku bilaabno dhankaas iyo waqooyiga Itoobiya gaar ahaan gobolka Axmaaradu dagaalada ka soconaya waa dagaalo aad u sii xoogeysanaya waxaana la soo sheegayaa in dagaaladii u dambeeyay ay shalay ilaa xalayto ka dhacay gaar ahaan Agadisay iyo sidoo kale Gondar in ay yihiin dagaalo ay fara isku saareen labadani dhinac ee halkaasi ku wada dagaalamay waxaana la soo sheegayaa TPLF in ay jabkii ugu weyneyd ay u geysatay ciidamada militariga iyo kuwa huwanta ee halkaasi ka dagaalamaya waxaynu ognahay in TPLF ay ka dagaalamayso labada dhinac ee kala ah deegaanka Canfarta iyo sidoo kale gobolka Axmaaradu oo waliba qaybihiisa inta badan deegaano aad u tiro badan ay iyaguba haatanba ay gacanta ku hayaan ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale kuwa huwanta ee Axmaaradu ay wehelinayaan ayaa iyaguna dagaalo kala duwan oo weeraro duqeymaha ku soo qaaday dhankaas iyo kooxaha TPLF ee halka ay kaga sugan yihiin dagaalada ayna ka dagaalamayaan deegaano badan ayay waxa ay sheegteen in ay ka barakiciyeen ciidamada TPLF sida ay iyagu afhayeenka militariga Itoobiya uu sheegayo balse labada dhinac waxa ay kala sheeganayaan guulo halka dhinaca kale ee TPLF ay iyaguna ay sheegayaan in jabkii ugu weynaa ay gaarsiiyeen ciidamadana ay qaar kamid ah ay iyaguba ay isu soo dhiibeen waa sida uu afhayeenkooda ku sheegay waxayna sheegayaan in qaybaha u badan aaga Gondar ay iyaguba la wareegeen sidoo kale waxa uu dhahay ciidamada militariga Itoobiya ee nala dagaalamay waa kuwa aad u daciif ah sida uu asagu afhayeenku hadalkiisa u dhigay weeye waxa uu sheegayaa in deegaanada ay haatan qabsadeen in ay iyagu gabi ahaanba ay markii ay dagaalka la galaan ciidamada militariga ay goobihii isaga cararayaan sidaasna ay ugu fududaatay in qaybo kamid ah wabkii ay ka carareen ciidamada militariga Itoobiya ay iyagu gacanta ku dhigeen sidoo kale TPLF waxay ka dagaalamaysaa gobolka Ariiraahda ee deegaanka Axmaaradu iyagoo waliba dagaalo aad u ba'an ay halkaasi ka socdaan waxayna ogeen in TPLF maalinnimadii shalay ahayd ay duqeymo u geysatay caasimada Canfarta taasoo qaybo kamid ah ee haatanba ay burbursan yihiin maadaama iyagu duqeymo ay ku soo rideen ama duqeymo ay ku sameeyeen waxa uu sheegay dagaalada halkaasi ka socda in awood buuxda ay u leeyihiin in gabi ahaanba ay soo afjaraan ciidamada militariga ee la dagaalamaya sidoo kale waxa uu hadalkiisa sii raaciyay sidoo kale waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in uu doonayo xukuumadan cusub ee Abiy Ahmed uu haatanba soo dhisay uu isagu gabi ahaanba tii hore ay la mid tahay waxa uu kale ku daray hadalkiisa afhayeenka Tigreega in xukuumadaasi cusub ay TPLF gabi ahaanba ay qaadacsan tahay sidoo kalena waxa uu sheegay in xukuumadda Abiy Ahmed ay tahay xukuumadii hore u jirtay wuxuu doonayaa ay yiraahdeen Abiy Ahmed in halkaasi Itoobiya dagaaladii ay ku jirtay ka sii socdaan sidoo kalena wax isbedel ah uusan la imaanin wararkaasi wixii ka soo kordho halkani ayaynu idin kala wadaagi doonaa dagaalada waqooyiga ka socdo saaxiibayaal haddii aynu u laabano falanqayntii guud aynu ku sameeyni rabnay guud ahaan xukuumadii cusub Abiy Ahmed uu soo magacaabay sidoo kalena uu soo hor keenay baarlamaanka
xukuumaddaasi waxaynu ogeyn in Soomaalidu ay rabtay in qayb mug leh ay ka qaato wasiirada cusub ee Abiy Ahmed soo magacaabi doona balse halkaasi waxa ka dhacay waxyaabaha aan laga filinayn Abiy Ahmed kadib markii qaar kamid ah xilalkii ay wasiiradu Soomaalidu ay hayeen ay horeyba qaar ay iska عزيلين sidoo kalena qaar oo doonayay in ay iyagu xil loo magacaabo halkaasi looga tagay dabcan wasiirada hordhaca ee la soo magacaabay Soomaalidu waxa ay rabtay in ay noqoni doonto sida ay arimaha baraha bulshada ka socday in wasiir ku xigeen aan ilaahay ra'iisul wasaare ku xigeen ay Soomaalidu sanadkan iyagu qaadani doonto balse halkaasi iyo wasiirada cusub iyo waxa ka dhacay meesha dabcan Soomaalidu waa wax ay si la yaab leh oo la yaaftay sidoo kale waxa ay sheegtay in Abiy Ahmed uu sanadkani wasiirada cusub soo magacaabay uu gabi ahaanba ka dhigay ahmaaro oromo iyo sidoo kale canfar dabcan arimaha baraha bulshada dadka Soomaaliyeed ayaa arintaasi aad uga carooday kadib markii hal wasiir oo kaliya kaasoo ah Ahmed Shide oo isaga bal lagu tiriyay dhankaas iyo oromada balse guud ahaanba ku matala Soomaalida in uu wasiir u yahay horeyna uu ah wasiirka maaliyadda haddana dib ugu soo laabtay booskiisii hore ayaa isaguna dabcan waxa ay dhahaan in ninkaasi uu ahay mid Soomaaliyeed uu yahay mid oromo oo halkaasi mar waliba iska joogo oo guud ahaanba Soomaalida uu wasiirku u yahay wax war aan ka haynin dabcan xukuumaddan cusub ee wasiiradani uu soo magacaabay Abiy Ahmed Soomaalida gabi ahaanba waxa uu ku dhigay wax tacajab iyo la yaab leh kadib markii ay iska waayeen xilalkii ugu sareeyay Ethiopia guud ahaanba sidoo kale Soomaalida halkaasi degta ayaa iyaguna gabi ahaanba waxa ay ka caroonayaan qaabkii foolxumada ahayd ee uu la dhaqmay Abiy Ahmed dabcan waxaynu ogeyn in ololaha doorashadu ay aad u taageersanayeen qaar kamid ah xisbiyada oo haatanba ka tirsan xisbiga Abiy Ahmed ee barwaaqo oo iyaguna gabi ahaanba sida ay filanayeen ma si ka duwan arintaasi uu Abiy Ahmed u soo magacaabay dabcan mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda deegaanka iyagu arintaasi wali kama aysan hadlin sababtuna waa la garan lahayd maadaama ay iyagu horeyba ay doonayeen in Soomaalidu ay sanadkan ka soo dhex muuqan doonto qeybaha ugu sareeya xilka xukuumadda cusub ee Abiy Ahmed dabcan Soomaalida halkaasi jab weyn ayaa ka soo gaaraya maadaama qayb kamid ah canfarta iyaguna loo magacaabay federationka sidoo kalena waxa halkaas ka cad in Soomaalidu sanadkani ama shanta sano soo socoto ay la kulmi doonto caqabadooyin kala duwan oo kaga yimaado qoomiyadaha maadaama iyaguna xilal waaweyn oo haatanba ay gabi ahaanba haynin واتاي صاحبي يلا وركين انت سينو كسو غبغبينينا انت وركن ورلميدها كل مدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.